wiilkayga wadada ayaan ku sii aasay gabadhaydana meeshii aan tegey. wargeyska New York Times ayaa daawacay sheeko ku saabsan haweeney Soomaali ah oo ka mid ah dadka sida ba'an ay u gaartay musiibadii ka dhalatay abaaraha. waxay tiri waan aasnay waana sii soconay. hooyo Xirsi Maxamed oo dalageedii roob xumo daraaddeed u halaaway aragii ay haysateen oo ka leeday waxa ay go'aansatay inay ka soo tagto gurigeedii oo ku yaala koonfur galbeed ee Soomaaliya. waxay soo xambaarsatay qaar ka mid ahna gacmaha ay ka soo qabatay 8 caruur ah oo ayada ay dhashay, ayadoo weliba cagta soo saartay wadda dheer oo kuleel iyo bus badan. mararka qaarna heerkulka kuleelka wuxuu gaarayay in ka badan 70 digrii. intii ay waddada ku sii jirtay wiilkeeda Aadan oo jiray 3 sano iyo bar ayaa dhaqaaqi waayay, wuxuuna hooyadiis ka codsaday inay siiso raashin iyo biyo, balse nasiib darro ma aysan awoodin inay wax siiso. nafaqa darro, gaajo, haraad iyo daal daraadiisa ayuuna u geeriyooday. waana sida ay qortay wargeyska New York Times. waan aasnay kadibna waynu sii soconay. 4 maalin kadib iyo socod dheer waxay gaareen xaro loogu talagalay dadka soo barakacay oo ku taala magaalada Doolow. laakiin gabadheeda ayaa nafaqa darro aad u xun ku dhacday. durbana waxay bilowday inay qunfacdo, dabadeetna ay hunqaacdo. aakhirkii dambana ay geeriyootay ayadoo dhex fadhisa teendho si kumeel gaar ah hooyi loogu dhigay, kuna taala xarada dhabtana ku haysata qaar ka mid ah carruurteedii. ayaa bishii la soo dhaafay tiri abaartan waxay naga dhammaysay xoolihii iyo wax walbo aan lahayn. hooyooyin badan oo Soomaaliya ayaa ku dhacay xaalado la mid ah hooyadan Soomaaliyeed oo kale. carruurta qaar waxay xamili waayeen safarka, daalka iyo gaajada iyo duruufaha soo food saaray. waxaana ka mid ah Firdowso oo 3 sano jir ah oo lagu aasay meel sida aan uga fogeyn xarada qoyskeeda uu degay ee Doolow. waxa ay dhimatay wax yar un kadib markii qoyskeed halkaas u gaaray. gaajada ka sokow waxaa haysay nafaqa darro iyo duruufo nololeed oo isla markaa ka muuqday, waxaana ugu darmay jadeeco iyo cagaarashow. waxayna sheegtay inay u dhimatay inay weysay wax walba ay ku badbaadin lahayd gabadheeda. haddii aysan abaarta jiri lahayn oo xoolahayga aan haysan lahaa, waxaan heli lahaa gabadhayda waxaan ku badbaadsado, ayay tiri Firdowso ayadeeda oo la hadashay BBC-da oo aan warbixintan ka soo xigtay. qaramada midoobay waxay ka digtay in 1,400,000 oo carruur ah ku sugan Soomaaliya ay sanadkan wajihi doonaan xaalado la xiriira nafaqa darro. dhibaatooyinka la xiriira abaaraha ayaa in muddo laga soo tabinayay deegaano ka tirsan koonfurta Soomaaliya, inkastoo mararka qaarna ay soo baxayeen warbixinno aad u naxdin badan. dhowr sano oo sandayn roobkii loo baahnaa isla markaana sanadkan la filayay inuu ka da'o Soomaaliya ayaa sabab u noqday in bulshooyinka xoolo dhaqatada ee miyiga inay soo wajahdo cuniyari iyo biyari. marka laga soo tago xoolaha qoysaska badan ee ka dhammaaday, dadka ayaa ka tegay deegaanadooda kadib markii ay soo food saartay macluul aad u xoog badan. inkastoo ay jiraan waddamo kale oo ka tirsan geeska Afrika oo ay soo food saartay abaaruhu, haddaba Soomaaliya ayaa noqonaysa kuwa ka soo baxaya sheekooyinka ugu naxdinta badan ee wargeysyaduna ay qoraan. dadka wajahaya gaajada ayaa tiradooda gaaraysa 50% dhowrkii bil ee lasoo dhaafay. dad badan ayaa u barakacay sababahaas dartood, ayadoo taasina aakhirkii dambe uga sii dartay colaadii Ukraine in qamadiga la dhoofin jiray la joojiyo. qiyaastii 7 milyan oo Soomaaliya ayaa qarka u saaran inay cunto la'aan ay ku dhacdo, sida ay tabiyeen hay'adaha gargaarka tan iyo bishii January ee sanadkan. 148 carruur ayaa u dhintay nafaqa darro sida lagu xusay warbixin ka soo baxday hay'adda UNICEF.